Soomaaliya waxay soo martay gumeysiyo aad u fara badan oo cadaan ah oo runtii waxa waa Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis ayaan soo aragnay dalalkeennii kala qaybiyay dalalkeennii dawlado kale u gacan geliyay sida Kenya iyo Ethiopia dhul Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed u gacan geliyay laakiin hadda gumeysiga jira noocee waa su'aashaas horta ma la isweydiiyay Soomaaliya yaa gumeysta hadda dad baa hadda waxa waa runtii gumeystay dadku gumeysta Soomaaliya waa Imaaraadka period waxaan u leeyahay Imaaraadka dalkeeni waa uu soo galay waa uu kala qaybiyay maamuluu naga dhex samaystay u adeega asaga danihiisii furiya isagoo ilaashanaya danihiisa maxay tahay danihiisa waa marka waa dekadu ka dhex samaystay waa dariiq strategically meesha aad ku taalid in waxa waa runtii halkaas uu ka ilaashado danihiisa strategically ee waxa waa mataqaana maraakiibta u soo marta in Soomaaliya dawlad xoog leh aysan ka dhalan waa qorshihiisa because waxa waa survivalkiisa asaga waxay ku xiran tahay gacankan oo runtii waxa waa albaabka laga soo gala baabul madabka oo Soomaaliya waxa waa runtii ah inuu kala haayo qaybna Somaliland waxa waa uu si gooni u haysto Soomaalida kale si gooni u haysto badda cas iyo badda ocean kana halka laga soo galo oo Puntland iyo Somaliland oo waxa waa runtii maamuladoodii gacanta uu ku dhigo sidee laga guulaysan karaa su'aasha taalo way adag tahay waa qorshe dheer waxay u baahan tahay runtii midnimadaas marka maxay ku imaan kartaa marka markii haddii waxa waaye maamuladaadii waxa waaye mataqaanaa sandareerto maalmo waxa waa la siinaya gacanta lagu hayo dhaqaalahoodii noloshoodii waxooda waxa waaye maxaa runtii waxa waaye ay runtii u hagaagi la yihiin Puntland iyo Jubbaland ka soo qabay Somaliland waa gooni go'odkoodii waxyaabaha xoojinaya horta waaba iyaga because waxa waaye dawladna waxa waa inaysan helin magaceeda waa ay og yihiin oo aan loo aqoonsanaynin adduunka kala ma jari karo Soomaaliya awood uma lahan saasi talaakiis maxaa gooni lagu hayaa oo runtii waxa waa aqli midaysan ee dalkoodii waxa waa ay kula midoobayaan ay u leeyahay la yihiin because of Imaaraadka halkaas uu ku beela halkaas uu wuxuu rabo ugu meeriyaa sidoo kale wuxuu adeegsadaa Ethiopia ayuu runtii waxa waa mataqaana proxy war wax la yiraahdo oo waxa annaga nagula dagaalama dhaqaalaha uu soo mariya hubku uu soo mariya wax walba uu soo mariya maamuladaas dawladii federaalka ee Soomaaliya ayuu gacanta ku haysan jiray muddooyin laakiin waa laga xoreeyay ilaa iyo hadda xuduudaha ayaan maraynaa laakiin maxay u baahan tahay waa marka talo ku aadan Xasan Sheekh waa in la siiyaa waa aragna Soomaaliya waxay u baahan tahay runtii adeeg waxay u baahan tahay runtii waxa waaye qaraska tuur siyaasadeed sometimes waxa waaye wax intaad xeerinaysid ayaa wax badan ka halaabayaan waqtigana kaaga dhamaanaya marka waa aragna in Soomaaliya waxa waaye mataqaanaa aysan waxa waaye mataqaanaa maamuladoodii aysan marnaba aysan soo dabceynin hal xoojiyo oo hal xukumo oo hal la dagaalamo oo ciidamada iyo hubkii wixii waxa waaye mataqaanaa tala ma aha because waxa waaye shalan ka soo baxnay cunaqabateyntii hubka haddii maanta shacabkaaga iyo maamuladaadii aad hub iyo waxa waa dagaal aad la gasho waa sida ay doonayeen Ethiopia iyo Imaaraadka in maanta hadana lagu celiyo ground zero waxaan ka wadaa inaad waxa maanta aadan adigii shabaabkii waxa waa lagu gacmo xiro oo hub aakay wax ugu weyn adiga waxa waa lagu soo reebo oo maanta waxa waa aadan baacsan karin nimanka waxa waa ku soo abaabuleen marka waxa soo dhan runtii waxa waa in Imaaraadka runtii dagaalkii lagu jiray dawlado far badan ee runtii waxa waa gumeystaha ahaa ee cadaanka ah ama Ingiriiska ama Talyaaniga ama Faransiiska day waa qof cad oo adiga dalkaaga ku soo duulay oo ku gumeysana aad u jeedid xisbiye iyo SWL iyo kacdoonna lagu abaabulay laakiin Imaaraad maxay u baahan tahay marka asaga waxa waa toos kuuma uusan imaan aqli iyo maskax aqoon dheerad iyo lacag uu ku bixiyay inuu waxa waa sida adiga lagu kala heen lahaa oo runtii waxa waa jaamacada waxa waa mataqaanaa uu lacag badan ku bixiyo u darso waa ay darseen maamulada lagu samaystay Jubbaland halkaas lagu haystaa dhuxushi iyo waxa waa geedahaaga iyo dhirtaada iyo xalafuntada ayaa lagu hayaa kheyraadkaaga ayaa halkaas laga daldashaa Broxor Kenya ayaa lagu sameeyay Kenya halka ku ilaali baa leeyahay ninka dadkiisa halka degan waxa qabiil baa lagu kala qaybay qabiil baa waxa waa runtii waxa waa adiga dhanba waxa waa aaminsan tahay markii qabiilkii ayaa lagu leeyahay halka ku xooji maanta waxa waa dadka degan Kenya iyo dadka degan waxa waa Ethiopia ee Soomaalida deegaanka Soomaalida intaba waxa la leeyahay waa dal iyo deegaan baa nidii abuurna maadaama doorasho deegaan iyo deegaan weyn aadan ku lahayn Soomaaliya deegaanka qabsada waxa baa laga dhaadhiciyay wax walba iyada kala qiimo badan hadii waxa waa siyaasadda lagu heshiiyay hadii kootadii Soomaaliya ra'iisul wasaarihi ay ka haystaan intaba uma jeedaan waxay u jeedaan danaha Imaaraadka Puntland sidoo kale danaha Imaaraadka ayay fulisaa Saciid Cabdullaahi Dani waa nin meesha u fadhiya wakiil u fadhiya waay
runtii waxa waa mataqaanaa maamulba waxa waa mataqaanaa arrimaha socda iyo siyaasadda socda waxa waa danaha nimankaas fuliya imaaraadka waxa daacish soo abaabulay waxa buuraha dagaalada ka abaabulaya waxa wiiqaaya waxa waa la dagaalanka shabaab iyo international waxa waa Soomaaliya inay la dagaalamayso nimankaas waxa indhahooda ka sii jeedinaya eris imaaraad isapiro nimanka iyaga soo diray iyaga soo fangaray halkay ka soo dhoofeen waa la yaqaanaa halka ay soo mareen waa la yaqaanaa imaaraadka waxa ay runtii waxa waa mataqaanaa nimankoodii la qabtay ayaa la waraysto sheegaya Yemen in la soo marsiiyay oo waxa imaaraadka ay soo marsiiyeen runtii waxa qaarkood dhalasho kale ay tahay Yemen la soo marsiiyay kadib Somaliland la soo marsiiyay kadib buuraha la keenay dadkooda ayaa sheegaya marka waxa runtii waxa waa iska dhicinta u baahan kacdoonka u baahan waa imaaraadka laakiin dawladda Soomaaliya runtii waxa waa sandareerada yar ee waxa waa ciidamada ay u tababarto iyo waxa waa meelaha ay runtii waxa waa ka taakulayso waxay ku habboonaan lahayd inay waxa waa ka tashato because haddaysan ka tashanin waxa waaye waa cadow runtii waxa waa kula degan kula jira oo runtii waxa waa kaana jira kuwana waxa waa mataqaanaa dhex milmay oo maamuladaadii waxa waa kala qaybsaday Ethiopia waa la isku dayay in waxa waa runtii waxa waa pressure la saaro oo laga saaro waxa waa Amisomti iyo Admiski iyo Unsum lagu soo daray iyadoo runtii waxa waa gaajo la tusay laakiin imaaraad miyaa gaajo tusi kartaa waa dalka lacag badan waa dalka barwaaqo badan dalka aqoon badan runtii waa ay tageen runtii intaan burbursanan ayna dhaafeen marka Ethiopia waxa waa sibaad u cadaadin kartaa runtii waxa waa dhaqaalihii yara ee runtii imaaraha iyo interestka Soomaaliya kala hayeen ayaad ku cadaadin kartaa laakiin imaaraad maxay ku cadaadin kartaa waa maya Somaliland ayay ka haystaan Somaliland hadda aqoonsigii ka sabartay xataa runtii waxa waa interestkii waxa waa mataqaanaa Soomaali kala go'eeday lahayd xataa hadda ay ka qoosteen ay weli iyada waxa waa mataqaanaa maalgelisa oo nafta ay ku haysaa runtii life support wax la yiraahdo ay u tahay marka arrimahaas oo dhan runtii waxa waa Soomaaliya waxay u baahan tahay gacan adag Soomaaliya waxay u baahan tahay xukun adag Xasan waa soo aragnay runtii waxa waa afartiisii sano hore wuxuu ahaa nin aad u dabacsan u dhimriyo ummadda u tanasula dadka laakiin afartan sano muxuu u yiri loo joojin maayo muxuu u yiri waxa waa mataqaanaa loo hakin maayo because of Somali ma aha Somali waxa la dagaalamay oo leeyahay loo joojin maayo waxa loo joojin maayo leeyahay waa imaaraadka markii danahayga ay ka fushinaysa oo Soomaali ay waxa waa runtii kala qaybanaysa waxa la leeyahay waxa waa loo joojin maayo waa imaaraad qadar meel baa la iska soo saaray sandareeradeed banaanka la iska dhigay dana yar oo runtii waxa waa mataqaanaa aan waaweyn ay interest Soomaali kala had laakiinse waa ku weeqan talaftirkeeda tartankii waxa kaga guuleystay imaaraad oo runtii waxa waa maamul ka waaweyn iyada haysta imaaraadku wuxuu nimanka la yiraahdo qadar waxay siinay farmaajo kaliya cid kale ma aysan iyo Fahad Yaasin waana ila dagaalami waayeen labadaas maamul because of imaaraad ayaa millions of dollars waxa waa mataqaanaa ku fangareynay dikadooda ayuu isticmaalaa waxa ka soo dagaa berbera maanta waxa waa isagoon cidina kala tashan oo runtii waxa waa Somaliland gooni loo aqoonsanin ayuu dikadeeda dayactiray ayuu dhaqaale waxa waa heshiis kula galay Ethiopia percentage dalkeena inuu waxa waa qayb uma taqaanaa uu gumaysto waa ay caddahay laakiin waxa waaye Soomaaliya waxaan kula talan lahaa inta aan kursigayo in ka fadhino inaan halkaas barashar ka saarno iyageena waxa waa safaaradooda aan saarno tababarada iyo xiriyaha iyo runtii dhaqaalaha yaroon ka helnana inaan joojino taas aniga taleegulu muuqata iyadoo waxa waa dagaal iyo xoog aan ummadaadii shacabkaaga aadan ku dayin oo aanan waxa waa mataqaanaa cuno qabateen hub mar labaad aan ugu soo rogan shacabka la dagaalaman ee imaaraadka danihiisa kala dagaal Soomaaliya xuduudaha ka xir diyaaradoodii xir yeesan imaanin that is the only option waxa waa dawladda u furan waxa haysata waa hal sano runtii waxa waa intii saxire iyo fandhaal kala dhicin sanad iyo labada bilood ee waxa waa dawladda Xasan Sheikh ka harsan waxaan kula talin lahaa inuu xoog saaro imaaraadka halkii Ethiopia hal sano waqtigeeda inooga dhumay oo runtii Ethiopia aan xoog saarnay I believe in waxa waa imaaraadka dan halkan sano xoog saarno inuu dalkeena hagaagayo doorasho qof iyo codan la gaarayo oo runtii waxa bush gareenayo doorasho mataqaanaa dadban waa iyaga because they want to pay millions of dollars inay bixiyaan ay rabaan oo runtii waxa waa mataqaanaa kursiga kaga tuura Xasan laakiin waa uu fahmay laakiin sahabka ee runtii waxa waa runtii kula dagaalamana iyaga ayaa ka maqan istaraatiijiyadaas inay iyaga waxa waa dalka Soomaaliya foobin la yiraahdo safaaradoodana baxa la yiraahdo lama tuso adduunka inay waxa waa Soomaaliya carqalad ku hayso sida adduunka waxa waa Suudaan ay u tustay sida Liibiya loo tusay sida Yemen ay u tustay adduunka inaan u tusno anagana laakiin hadda waxa adduunku wuxuu tusayaa good side inuu friendsna leeyahay inuu Soomaaliya caawino inuu Soomaaliya safaarad ku leeyahay ciidanku ka tababaro no marka waxa waa good side-kiisa intuu ku tusaayo waxay ku habboon tahay in imaaraadka runtii dagaal lagu qaado that's my belief that's my analysis waxa aan aaminsanahay oo runtii waxa waa aan soo dharin in dagaalka Soomaaliya maanta lagu wajaho imaaraadka taas waxaan soo jeedinayaa